Sihayaha ra'iisul wasaaraha ee dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa maanta kormeer howleed ku tegay gegada diyaaradaha ee Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho isagoo u kuurgalay sida ay u socdaan howlaha garoonkaasi iyo horumarinta lagu wado. Sihayaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa ku wehelinayay kormeerkiisani sihayaha wasiirka gaadiidka cirka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Omar, saraakiisha garoonka iyo mas'uuliyiinta shirkadda gacanta ku haysa maamulka garoonkaasi, iyagoo mas'uuliyiintu booqday qaybaha kala duwan ee garoonka, waxaana markii dambe ay mas'uuliyiintu warbixin ka dhageysteen sihayaha wasiirka gaadiidka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Omar oo ka warbixiyay howlaha ka socda gegada diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cabdulle, waxaana uu yidhi waxaa maanta aniga iyo sihayaha ra'iisul wasaare iyo civil aviationka airport managementiga iyo dhammaan inta ay khuseysay aan kormeer shaqo ku tagnay airportka Aadan Cabdulle oo runtii ka socoto shaqo baaxad leh. sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaan shirkadda Favori oo airportka Muqdisho manage garayso maamusho kontraadna ku haysatay, waxaan la galnay kontraad cusub. kontraadaasi waxay shirkadda ku qasbaysay in ay shaqo dhismo dib u habeyn dib cusboonaysiin badan ay garoonka ka qabato si muddada 20 sano ee soo hartay airportkaasi loo isticmaali karo. kontraadahaas waxaa ku jiray duugitaanka badda, derbi laga dhisay ilaa 500 mitir ku dhow oo badda gudaheeda laga dhisayo, badda oo la duugayo, runwayga oo dib loo cusboonaysiinayo, taxiway cusub oo la sameynayo haddii Ilaahay ka raali noqdo, iyo movement area ama apronka oo la cusboonaysiinayo. marka waa shaqo aad iyo aad u tiro badan u baaxad weyn. shaqooyinkii ayaa anaga oo dhexda ku jirna, inkastoo hadda uusan aad u daahin oo dib u dhicin, waxaa nagu soo galay xilliga coronavirus ayaa nagu soo galay. muddo badan ayuu airportka xirraa oo aan la soo geli karin. marka si loo dardargeliyo cabashada dadweynaha ay soo gudbiyaan, guddiga diyaaradaha iyo inta ka shaqeysa meeshana ay soo gudbiyaan ku saabsan dayactirka garoonka iyo dhanka civil aviationka oo dhinaca regulationska wixii ay ka qabaan, aragtida ay ka qabaan oo dhan, si loo dardargeliyo shaqada ayaa maanta kormeer rasmi ah aan ku soo marnay dhammaan meelaha shaqada ay ka socoto. waxaan soo aragnay in shaqooyinka ay badi socdaan, qaarkood la dhameeyay, qaar badanna ay runtii ay dhiman yihiin. waxaan rabnay marka inaan ku dardargelino sidii qaybaha dhiman loo dedejin lahaa, sida ku qoran kontraadda, quality-ga ku qoran kontraadda na loogu sameyn lahaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. waxaa runtii warbixin siiyay civil aviationka maamulka garoonka iyo shirkadda Favori. haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala waqtigii koronaha ee uu xirnaa naga xirnaa airportka oo shaqada dib nooga dhacday inaan ka soo kabano oo shaqada aanan dib nooga dhicin, xilligii loogu talagalayna aan dhammeeyno haddii Ilaahay ka raali noqdo. waxyaabaha ka hor imaanaya shuruucda ee laga yaabo inay kontraadda ku jiraan aan dib u sixitaan aan hadda ku sameyno haddii Ilaahay ka raali noqdo. waxaan runtii halkan nooga mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha, sihayaha ra'iisul wasaaraha oo waqti badan maanta na siiyay, nala soo kormeeray, na dhageystay, shaqo badan oo wanaagsan nala qabtay, isu soo kaayana dhaweysay.